qodobka koowaad waxaa jira codsi ka yimid guddi ku-sheega doorashada iyo xuduudaha ee Jubbaland kaasoo isugu jiray codsi af iyo qoraal ah oo ay ku dalbanayaan inay la kulmaan musharaxiinta. kadib markii aanu qaadaa dhignay qodobka isaga ah waxaanu isla qaadanay inaanan la kulmaynin guddiga doorashada ee Jubbaland sababtoo ah musharaxiinta isbedel doonku maba aqoonsanaba sharciyada iyo jiritaanka guddiga isaga ah. wuxuuna asaas uga dhigay arrinta iyada ah qodobadii aanu hadda ka hor tilmaanay ee tirada badnaa oo ay ka mid ahayd inay lumiyeen dhexdhexaadnimadii, sidoo kale inay noqdeen gole ama guddi u shaqeeya u adeega musharax gaar ah, iyo qodobo kale oo la halmaalo oo ay ka mid tahay in qodobo kale oo ay ka mid tahay inaysan u adeegaynin danta guud ee Jubbaland. sidaa darteed goluhu wuxuu ku dhawaaqayaa inuusan la kulmaynin aqoonsanayna guddiga isaga ah, wuxuuna ku baaqayaa go-aamo ka duwan kuwaas oo aad hoos ka arki doontaan. qodobka ku xiga, guddigu ama golaha musharaxiinta isbedel doonku wuxuu isla qaatay si loo badbaadiyo Jubbaland mustaqbalkeeda iyo nabadeeda iyo horumarkeeda, wuxuu isla qaatay ku dhawaaqidda golaha badbaadada Jubbaland kaasoo ka kooban qaybaha kala duwan ee bulshada ee reer Jubbaland oo ay ka mid yihiin haweenka, oo ay ka mid yihiin odayaasha dhaqanku, oo ay ka mid yihiin siyaasiyiintu, oo ay ka mid yihiin maxaan ku idhaahdaa dhalinyaradu iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, kaas oo ah maxaan ku idhaahdaa gole guud oo reer Jubbaland ah oo ilaaliya xuquuqda iyo jiritaanka Jubbaland. wuxuuna qaban doonaa shirweynihiisii koowaad muddo dhow ayuu qaban doonaa. waxaa kale oo uu isla qaatay midowda musharaxiinta isbedel doonku, waxaa kaloo isla qaatay ku dhawaaqidda guddi doorasho. shacbiga reer Jubbaland eena taageersanna waxaanu ugu baaqaynaa har iyo habeen inay ka shaqeeyaan kuna dadaalaan amniga iyo nabad